iska ilaali 10kan qof inay noloshaada soo galaan haddii ay ku jiraanna ku dadaal sidii aad uga saari lahayd noloshaada. 1 qofka kale ka sheekeeya ee mar walba oo aad kulantaan kuula yimaada ama kaaga sheekeeya dhibka iyo jabka dadka kale. 2 qofka ay kala tageen si xun uga warrama oo mar kasta oo aad weydiiso xumaantiisa oo dhan dusha u saara qofka maqan. 3 qofka damaca badan ee iska jecel wax walba inuu helo, tanaasulna aan u samaynayn si walba oo aan ugu baahnayn waxaas, haddana isla raba. 4 qofka naftiisa oo kaliya ka sheekeeya oo naftiisa oo kaliya ay macno un la leedahay, si walba oo loo caawiyana dafira oo yiraahda aniga ayaa dadaalkayga ku gaaray. 5 qofka markaad dhibkaaga u sheegatid dhibkiisa ku weyneeya, kaasoo halkii aad ka sugaysay talo iyo inuu qalbiga kuu dejiyo kuu buunbuuniyo dhibkiisa ilaa aad aaminto in adigu aadan dhibba ku sugnayn. 6 qofka beenta badan, inkastoo beenaha dadka afkooda ka soo baxa ay fara badan yihiin, haddana beenaaluhu kala darana iska ilaali qofka noloshiisa oo dhan ay been tahay, kaasoo weliba ku dhaaranaya beentaas. 7 qof hore kuu garanayay oo mar kaliya xiise kadis ah, ammaan, deeqsinimo, naxariis iyo wixii la mida kuula yimaada, taas oo ujeedada kaliya ay tahay dan u gaar ah oo uu xaggaaga ka arkay. 8 qofka markuu qiyaamay, waayo waa suurtagal in qofkaasi uu mar kale ku qiyaano. haddii aad qalbiga ka jabtay waa hubaal in kalsoonidii ay meesha ka baxday oo aad mar kale qalbi jabi doonto. 9 qof kula tartamaya oo noloshiisa oo dhan barbar dhiga noloshaada iyo qaabka aad u wadato, misana dadaalkiisa oo dhan ku bixinaya inuu adiga oo kaliya ka sareeyo. 10 qofka marka ay noqoto xiriirka haasaawaha ka been sheega awoodiisa, dhaqankiisa, dabeecadiisa iyo wixii la mid ah si uu u sameeyo soo jiidasho dhankiisa ah. haddaba daawade nala wadaag nambarkee ayaa ku saameeyey. haddii aad nagu cusub tahay follow dheh, sidoo kale muuqaalka inoo like garee, asxaabtaada kalena usii sheer garee oo koobi linkiga noo taabo. mahadsanid.